shir madaxeedkan inta uu socday waxaa la isla gorfeeyay xaaladda siyaasadeed amni iyo bulsho ee ku hareeraysan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka federaaliga ah iyo tan madaxweynaha taas oo ku dhacda waqtigeeda si waafaqsan heshiiskii dhuusamareeb haddaba iyadoo taas laga ambaqaadayo waxay madaxdu ku dul shaqeeyeen heshiiskii ka soo baxay samareeb 3 falanqayn dheer kadib iyaga oo dhowraya midnimada dalka iyo wadajirkiisa tixgelinayana xaaladaha amniga iyo siyaasadeed ee dalka ka jira loona qaban lahaa doorasho xilligeeda ku dhacda waxay isla qaateen qodobadan soo socda qodobka koowaad in dowladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dowlad goboleed ah in deegaanada doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah lagu asteeyo 2 magaalo oo caasimadaha gobolada uu ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codaynaya ay noqdaan 101 ergo oo metelaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dowlad goboleedka in qoondada haweenka ee 30% ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland ay soo doortaan ergo matasha oo wadajir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo 1 November 2020 in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay'adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan madaxdu waxay adkaynayaan in xorriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka ku-meelgaadhka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tabiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso lagana fogaadaa wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas'uuliyadda kaga aadan doorashooyinka shirku waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda Galmudug sida ay u martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee Samareeb 1 Samareeb 2 iyo Samareeb 3 sidoo kalena waxa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka Banaadir sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufuudii ballaadhnayd ee la socotay waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyay muddadii wada hadalladu socdeen isagoo xoogga saaray in wadajir iyo wada ogol lagu dhameeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka ugu dambeyntii shirku waxa uu bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysanayso dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada Soomaaliya
dhammaad intaas ayuu ku dhammaaday sida uu qorayo heshiiskanina waxaa la horgeyn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo baarlamaanka federaalka ah si uu u meel mariyo waad mahadsantihiin